tababarkani wuxuu ku saabsanaa inaan dadka barno qaabka ugu habboon ee loola shaqeeyo dadku markay dhiban yihiin hadday noqoto dadku markay ku jiraan cisbitaalada ha noqoto qaybta maskaxda inay ka xanuunsanayaan ama ha noqoto qofku inuu aad u liito aad u sakaraad yahay oo markaa uu u doonayo xilligaa cid dejisa ama ha noqoto qofku inuu xilligaa markuu joogo walwal iyo naxdin iyo fikir uu dareemayo marka dadka in lala shaqeeyo qaybta kale waxaan tababarku ku saabsanaa dadka inaan u tababarno dadka xabsiyada ku jira iyo qaabkii loola shaqayn lahaa iyadana inaan u tababarno waxaa kaloo tababarku uu ku saabsanaa qofku marka uu darooga iyo waxyaabaha isticmaalo sideebaa uu dib loogu soo celin lahaa bulshada oo dib ugu soo dhex noqon lahaa bulshada. waxaa jirta in dad kala duwan oo qaybaha bulshada ka socday ay tababarkan ka soo qayb galeen bal dadkan iyo sidaad ku xusheen aad tababarka siiseen haddaad iga waranto. waa su-aal aad u fiican wey maxamuud oo tababarkan iyo shaqadan hadda aan ka hadlayno wadamada galbeedka waxaa loo yaqaanaa chaplaincy ama chaplain waxa la yidhaahdo oo micnaheedu uu yahay dadka in la caawiyo isaga oo laga imanayo xagga diinta ama xagga diin laga imanayo inta badan shaqadaas dunidan galbeedka lafteeda muddo waxaa soo waday ragga laakiin hadda waa shaqa ragga dumarku labaduba ay wada qabtaan innaga dhaqankeena gaar ahaan dadka muslimiinta inta badan qofka imaamka la yidhaahdo waa nin weeye marka shaqadan inta badan shaqo rageed ayay ahayd laakiin markii broseeskan ama barnaamijkan uu soo baxay aniga iyo dadkii wada gaar ahaan anugu waxaan go'aansanay bacdama bulshadu rag iyo dumarba waxa loo khidmeynaya ay yihiin inaan gabdhana ku soo darno ragna aan ku soo darno marka 22 qof oo intooda badan ay muslimiin ahaayeen hal qof oo aan muslim ahayn baa nagu jiray ayaa tababarkan qaadanaysay 8 dumar ayaa ku jirtay oo xaqiiqatan muxuu ahaa bulshada qayb muhiim kaga jirtay inta kale waxay ahaayeen marka rag ayadoo dhanka diinta laga imaanayo ayaad carabka ku dhifatay waxaan ogahay waxyaabaha dadku sida gaarka uga shaqayn doona waxaa ka mida bimatalan dadka loo gargaaray dadka cisbitaalada ku jira oo xanuunsan oo kale dadkaas marka dadkan aad tababarteen waxyaabaha ay u qabanayaan maxay noqonayaan waxay u qabanayaan tusaalahaan qofkii markuu cisbitaalka joogo dunida galbeedka oo kale cisbitaal buu qofkii ku jira waxa loo qabanaya asaasiga waxa weeye horta qofkan in la ogaado in diintiisii loo ilaalinayo iyo in kaleeto taas marka waa qayb weeye qofku hadduu tusaalahaan waxyaabaha sahlanba hadduu u baahdo kitaab quraan u baahanaya in loo raadiyo hadduu yidhahdo sijaad aan ku tukadaan rabaa in loo raadiyo haddii uu xilligaas uu doonayo in xoogaa loo sheekeeyo la wacyigeliyo la yaro waaniyo niyadda loo dejiyo in loo sameeyo haddii uu marxalad adag intuu marayo ama walwal dheeraada ama cudurrada maskaxda oo kale ama xataa ay timaado qofku inuu xilligii marxaladii dhimashadaba ay timaado in iyadana maaragtay xilliga iyada ah qofkii loo baahan yahay in la dejiyo taana way u qabanayaan marka si kale loo dhigo waxa weeye qofka waxaan doonaynaa oo hadda cilmiyan la og yahay qofku inuusan ahayn oo keliya wuxuu ka jiradaa jirka qofku jirkana ka jirado qalbigana ka jirado maskaxdana ka jirado marka jirka badana markuu ka jirado dhakhaatiirta nursingka ayaa la tacaalaya laakiin markuu qalbiga ka jirado ama maskaxda ka jirado waa in la helo dad ka imanaya xagga waxaan la yiraahdo therapy iyo counseling iyo therapy oo hadana waliba ku imanaya xaggii diinta marka waxay u qabanayaan waxa la yiraahdo la talin waxa la yiraahdo waanin waxa la yiraahdo aqli celin waxa la yiraahdo dejin waxa la yiraahdo rajo gelin waxaas oo dhan baa qofkii loo sameeynaya si kale hadaan u dhigo oo kale wadamadan aan joogno waxaad ogtahay dadka xuquuqdooda waa loo doodaa marka qofku markuu cisbitaal ku jiro ama xabsi uu ku jiro uu meelaha ugu baahi badan yahay weeye marka in loo helo cid u dooda oo u hadasho qayb ka mida taana way qabanayaan waan qabanaynaa yacni gabagabada gobolka Minnesota kaliya ee dadka muslimiinta iyo madagana meelaha ama ay ku xanuunsan yihiin ama ay xabsiyada ku jiraan halkan ma halkan xagee laga aadaya waa maxay qorshaha kan xigeed ku talaabsanaysaan ma Minnesota kaliya ahaanaysa mase gobolka kale u gudbi doontaan waa su'aal fiican weeye markaan su'aasha intaan ka jawaabin programkan sidiisaba waa kii ugu horeeyay ee wadanka Mareykanka oo dhan laga sameeyo ee noocan oo kala marka waa isku day weeye hadda marka waxaan soo wada tababarkan hal sano uu dhamaaday dadkan laftooda soo dhameystay marka waxaan rabnaa inaan la raadino cisbitaalada sida shaqo uga bilaabi lahaayeen sida xabsiyada shaqo uga bilaabi lahaayeen sidii ay bulshada ay wixii loo soo tababaray u gaarsiin lahaayeen taa marka laga gudbo waxaan u gudbaynaa tababar labaad baan samayn doonaa isagana oo isla Minnesota tajribadaas marka haddaan ku najaxno waxaan rabnaa inaan u gudbino gobolada kale ee wadanka
maraykanka inaan u gudbinno waxaa laga yaabaa inaan ku fikirno inaan tajrubada xataa yurub iyo meelo kale lafteeda la geyn karo ayaa laga yaabaa inaan isku dayno laga yaabaa mustaqbalka iyada lafteeda tajrubadaas in afrika iyo wadankii xataa loo celin karo waa suuragal weeye laakiin hadda waa bilow weeye waxaan isleenahay meeshan aan joogno inaan ka dhaqaaqno oo bal marka hore gobolada kale maraykankana aan ku tijaabin karno kadibna aan aragno sida uu u najaxo haddii ilaaha yidhaahdo ama u guulaysto